وعبد الناصر حسن قول قدومها دقمة صاحو وحن شوفنا دقمة صاحود والصحافيات كان قبان إنه وحكوا سبسني هي وحن نوي قدوميه قبل كيوفود وهو جامين أيام روت من الشلي هل كان صور الشلي كان على دقمة صاحو أكتر كان على لعضو فرحون لعضو سواء جاري وضلوا قلي gaari wada loo galay oo degmada saaxa ka baxay oo ay la socotay gudoomiyaha ururka haweenka laba gaari bay ahaayeen labada gaari waxa la socday gudoomiyaha ururka haweenka dhuux jaamac Usmaan oo taasi u socotay war walaasheed dhimatay u socotay iyadoo taasi u socota wadadii jidka loo galay waana la xabadeeyay waxaana ku dhintay wiil ay dhashay Allahu naxariisto liibaan mursal ali leeg Allahu naxariisto shalay wiilkaas aaskiisii waxa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Yufuud oo hogaaminayay aaskii bay ka qayb galeen arintaas waxay ahayd dhacdo xanuun badan bay ahayd arintaas waxa weeye ma taqaana arin looga balansanaa dhanka Galmudug iyo dhanka Puntland iyo dhanka deegaanka Soomaalida looga balansanaa qofkii sameeyay cidii shil sameeyay ardaala in la soo qabto waxaan maanta halkaan u marinayaa dhanka Galmudug inay soo qabtaan cidii dishay liibaan Allahu naxariistee dadkana wadada u gashay inay soo qabtaan waxa kale oo jiray wiil dhaawaca oo asna yeelay isbitaalka gaalkacyo hadda yaala jajaban ilaahay ha u boogadhayo inay soo qabtaan dadkii sameeyay hawshaas waa arin looga balansanaa cidii gadaal u soo noqota inay la shaqeynayso argixisada al-shabaab haddaysan marka iyagu waxa weeye waxa la isku ogaa hore in loo socdo gadaal u soo baxan waxay cadeynaysaa inay nabadiid yihiin cidda waxaan samaysay taas halkaas aan uga gudbayaa degmada saaxo waa degmo nabadeed waa degmo Puntland waa degmo horumar ku tallaabsanaysa waa degmo doorasho u diyaar garowday dhawaan waxa ka dhacaysa hadii alla ya gobolka bari haduu soo dhamaado waxa diiwaangelintii baa ka bilaabaysa gobolka Mudug waa degmooyinka seejooyinka meelaha la dhigay ay ka mid yihiin dhowr goobood ilaa 5 goobood dadku diyaar buu u yahay inuu dimuqraadiyadaas u gudbo madaxweyne danina ma sha Allah waa madaxweyne aad uga shaqeynaya dadku doorashada nafiicda inay dhacdo waana ku taageersanahay waana madaxweynihii hadda ugu horeeyay oo hirgeliya arintaas degmo walbana waxay ku helaysaa xuquuqdeeda ay ku helaysaa waxa weeye dimuqraadiyadaas waxay ku jiraa tabashada cid badan qabto waxay uga baxaysaa in la galo doorashadaas oo cid walba rabitaankeeda iyo cidda ay doonayso ay soo saarto tuunkuna waa baxaya ilaahay idinkiis magacayga waa Ismaan Warsamo Ciyaal waxaan ka mid ahay odayaasha degmada Saaxo Puntland waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka Mudug iyo wafti ballaaran oo hogaaminayay oo u yimid dhacdo foolxun oo halkan ka timid ka dhacday shalay sida gudoomiyaha laftiisu sheegay oo asagu goobjoog ka ahaa aaskii iyo dhibaatadii dhacday inta kadib waxaan rabaa inaan qodob yar ka iraahdo oo fariimaha dawliga ah oo gudoomiyuhu noo soo gudbiyay kamid ah in term of election doorashada soo socota hadii Ilaahay idmo oo Puntland oo naf qof iyo cod ah degmada Saaxood kaalintay ku leedahay waa qaadanaysaa degmada Saaxood diyaar bay u tahay doorashada waa soo dhaweynaynaa waana hadii adduunka ilbaxnimadiisa iyo horumarkiisa maanta furaheedu waa hab dimuqraadi election doorasho weeye waa soo dhaweynaynaa waana galeynaa waxaan aaminsanahay saaxa inay ka gali doonto kaalinta ugu habboon aad iyo aad baad u mahadsantihiin gudoomiye soo dhawow fakarkaas waa qaadanay waana fulinaynaa hadii waa soo dhaweynaynaa doorashada 6 sano ka bacdi doorashada noo timid codyo qafa waa soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa afarta adina waa ku qabsanaynaa waana ku dagaalamaynaa waana difaacaynaa magacayga Axmed Miro Guuleed baa la yiraahdaa odayaasha degmada Saaxood baan ka mid ahay doorashadaas 6 sano ka bacdi Ilaahay noo keenay oo aad iyo Puntland ah waa soo dhaweynaynaa waana ka qayb qaadanaynaa wax kasta ay tahay oo uga qayb qaadanaynaa cod iyo dhaqaale iyo wax walba waana soo dhaweynaynaa aad iyo aad waana fursad haysan madaxweynaha uga mahad celinaa waxaan nahay odayaasha dhaqanka ee degmada Saaxo
shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay laba qodob aan uga hadlaynaa. kow, waxaa imaanaya halkan doorashada Puntland ka dhacaysa oo electionka oo ah qof iyo cod. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, madaxweynahana aad baan ugu hambalyeynaa, waana ku garab taagannahay. doorashadaasina fursad qaaliya ayay noo tahay. saaxana way ka dhacaysaa, wax kasta oo yimaado oo caqabada waan hirgelinaynaa insha Allah ilaahay hadduu idmo. qodobka labaadna waxa weeye amnigeeda iyo degmada amniga guud waxaan uga dambaynaynaa oo mas'uuliyadeeda qaadanaya waxa la yiraahdo dawladda Puntland baan uga dambaynaynaa. amniga dawladda ayaa sugaysa. waxaa hadda nala fadhiya oo jooga oo arintan hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Mudug dawladda Puntland iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo madax badan oo noocyo badan ay ku jiraan. aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa arintaas. amnigana ayagaan uga dambaynaynaa, doorashadana waa sugaynaa, wayna ka dhacaysaa degmada. waxaanu nahay odayaashii deegaanka degmada Saaxo baanu ka turjubaynaa, afkoodii baanu ku hadlaynaa. anigoo afkooda ku hadlahaya waxaanu soo dhaweynaynaa doorashada qof iyo codka ah oo 60 sano ka bacdi maanta aan helay, oo aanu bidix iyo midig baan ku qabanayno. waxaanu ku sii daraynaa codsigaan ku sii darayna waxay tahay isimada kale ama odayaasha kale oo dhaqanka ee reer Puntland inay soo dhaweeyaan oo si sharafsan sidii qof walba xuquuqdu lahaa u helo, qof walba qofku doonayo u helo, ay noqotana muqraadiyad la soo dhaadhiciyo tuule iyo degmo iyo meel kastaba gaadhay, qof walbana codkiisa uu ku helo qofka uu doonayo. annagu hadda reer Saaxood haddaana waa ku dhimanay arintaa. maalintii halkan guddiga doorashooyinka yimaadeen galmudug dagaal bay soo qaatay, waxbay noo geysatay. mar walbana waxaanu u taagannahay inaynu difaacno hadda wixii ka dambeeyana. Puntlandna waxaanu ka codsanaynaa inay doorashadaas sida ay tahay meel walba ay uga hirgeliso. madaxweynuna sida uu soo dhaadhiciyay oo u keenay waan u mahadnaqaynaa.